waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda reer Hirshabeelle inaan la wadaago maxuu ahay warar ilaa iyo saakay la isla dhaxmaray oo social media hana wax badan la soo galiyay dad mas'uuliyiinuna ay soo galiyeen oo la xiriirta safarkii labada madaxweyne hore iyo wafdiga la socda ay ku tageen magaalada Beledweyne magaalada Beledweyne sidaad la socotaan waxa ayaamankan oo dhan aan la tacaalayna furitaanka airportka oo marna xiran markii roobdo marna furan markii uu qalalo xalay muxuu ahay 8 saac iyo bar ayaa waxa soo wacay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo ii sheegay in wafdigaas oo Beledweyne ku soo wajahan yahay maadaama asagoo hadda uu Beledweyne joogo anigana hadda xamar aan joogo waxaan u sheegay in muxuu ahay hadii roobabka ilaa xalad da'ay ilaa fiidkii da'ay hadii ay muxuu ahay aysan dhibaato xoog leh aysan gaarsiin in aniga iyo ra'iisul wasaaraha naftigeenu aan u soo socono marka gurmadkaas guud oo dadka loo sameeyna inay berrito oo maanta ah inay maaragtay ma sha Allah ay baraka badan meeshaas ka dhici doonto sidaasan muxuu ahay anagoo walwal ka qabna xaaladda airportka iyo xaaladda muxuu ahay runwayga ayaan ku kala seexanay saaka 6 waxa ii soo diray warbixin aan idila wadaagi doono joint air services muxuu ahay ururka la yiraahdo oo hawada muxuu ahay information-keeda lagu wadaago oo dawladda iyo AMISOM iyo UN iyo kulli information-ka ay muxuu ahay ay ku wadaagaan waxa la ii soo diray warbixin ah in 600 mitir oo runwayga ah gaar ahaan dhinaca bidix inay biyo fadhiyaan sawirradii waa la ii soo diray inaysan diyaaraduhu ku degi karin oo ay ku simbirixoonayaan gaar ahaan diyaaradaha waaweyn maadaama runwaygu uu yahay 200 mitir haddii 600 mitir ay halaysan tahay 1400 laga yaabaa in diyaaradaha yaryar ay ku degi karaan ama helicopterada recommendation-kaas la ii soo diray 2 saac iyo 27 daqiiqo waxaan wacay madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ii sheegay inuu airportka ku jiro waxaan rabay inaan la wadaago macluumaadkaas oo iraado madaxweynuhu airportka waa sidaas anaga naftigeenu standby aan ku jirnaa runtii aad aan ugu xumahay madaxweyne Xasan Sheekh si kulul ayuu wuxuu yiri adiga madaxweynaha tahay maxaa ka galay mataqaana civil aviation runtii waa runtiis badana anigu mataqaana howlaha diyaaradaha iyo wixii daga iyo wixii kaca iyo kuma mashquulo laakiin maanta maadaama ay xasaasi ahayd wafdiga socdaahuna wafdi muhiim oo yahay laba madaxweyne mataqaana hore xildhibaano xaaladda laga deyrinayo safarka oo yahay high profile يعني go'aanka degidda iyo kicinta inaan anigu qaato ayaan go'aansaday waxaan madaxweynuhu waa runta laakiin maanta oo kala maaha maanta meeshaas wixii ka dhacay mas'uuliyadeeda anay fuusha anaana go'aankaas qaatay bal aan sugno almeeno ilaa 5 saac 6 saac muxuu ahay inay qalashaab laga yaabaa runtii xiriirkii aan la sameeynay muxuu ahay dadka dhulka jooga iyo AMISOM iyo guud ahaan muxuu anaga Hirshabeelle dadka jooga xaaladda runwaygu waa soo hagaagaysay laakiin wali recommendation wuxuu ahaa diyaaradii oo mataqaana weyn inaysan muxuu ahay aysan isku degi karin macluumaadkii aan air operations ka aan isla qaybsanay iyo message-yadii hadda doontaan waa idin qaybsan karaa recommendation-ka ugu dambeeyay wuxuu ahaa Fokker 50 inaysan ku degi karin oo waliba raran oo wada buuxda madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen deegaankoodii u socdeen karaamay nagu leeyihiin sababan annaga aan u hor istaagno ama aan u diidno ma jirin mana jirto waxaan door bidaynay inaan maanta runwayga baxnaanino berrina ay baxaan aniga naftigaygu hadda berrita inaan baxaan rabo Beledweyne aan aado ayaa ii qorshaysan nasiib darro prime minister ko raaci rabay oo ka faa'iideysan rabnay berri safar ayuu galabta yahay ma suurta galayso waxa rabaa marka wararka social media la gelinayo la leeyahay Hirshabeelle noo diiday muxuu raadaarana la ka dansaday dawladda noo diiday kanay ahayd kaasay ahayd muxuu ahay wax jira maaha waxaan si gaara aan uga xumahay baaritaan aan ku sameyn doonaa shirkadda diyaaradda iska leh oo runtii
si unprofessional u dhaqantay oo wafdiga iyo madaxweynayaasha mar walba lahaa annagaa riskiga qaadanayno waa ku degi karnaa go'aanka diyaaradu inay dhulka ku degi karto inaysan ku degi karin go'aankaas baylotku iskama leh rakaabkuna iskama leh waxaa iskale hay-adaha u xilsaaran iyo dadka dhulka jooga oo ka warrami kara xaaladda dhulka ku sugan yahay shirkadaasu waxay ku xadgudubtay muxuu ahay ethicska iyo professionalismka duulimaadyada waqtigeedaanan muxuu ahay aan kala xaali doonaa hadda iyo dan diyaaraddii walwal badanayna gelisay inay baxday inay joogto inay soo noqotay inaysan mataqaana soo noqon waa ku wareernay xataa civil aviationku waxay noo sheegeen diyaaraddii inay beledweyne ku degtay in kale inaysan kala ogeyn oo raadiyaasha aysan ka jawaabeyn runtii walwalayna gelisay in diyaarad intaasoo mas-uula wadda inay raadiyihii laga wacay response ka bixi weyso oo iyadoo indhala degto waxaa kaloo naloo soo sheegay diyaaraddu inay dhowr jeer isku dayday inay ranweyga ku degto dhaaftay soo wareegtay ku soo noqotay riskiga intaas la eg iyo mas-uuliyadda intaas la eg iyo tahlukada intaas la eg shirkadaasaa qaadatay waana kala xisaabtami doonaa wafdiga iyo muxuu ahay iyo labada madaxweyne hogaaminaa hadday nabad ku degeen alxamdulilaahi rabbilcaalamiin annagana kurbadii waa naga degtay laakiin sida ay yeelaan iyo sida maanta wuxu dhaceen si laga fiican yahay ahayd